الحمد لله إلهي با مهدله الحمد لله إلهي با مهدله الحمد لله إلهي با مهدسكله كدب وحان ربا إنانو مهد عليو قدومكي يحلباندي دولة كونفور قلبيد حلباندي السدحادة oo ii doortay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed aad iyo aad baan inkaga mahad celinayaa mas'uuliyad culus iyo xilli adag daruufo badan jiraan duulaamo jiraan dhibaatayn jiraan burburin nidaamka federaalka ah jiro nacayb jiro isir nacayb jiro xaalad abaar kulayn waxyaalahaas oo dhan culays jiraan yaad ii doorateen waa inkaga mahad celinayaa waana isu soo duceynaynaa oo mas'uuliyad culus waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay ila garab qabto ilaahayna igu asturo amaanadan muhiimka ah oo aad ii dhiibteen waxaan ilaahay ka rajaynayaa kii koonfur galbeed nidaamkeeda iyo sharciyadeeda iyo dawladnimadeeda ilaaliyo isku haayo dadkana aan xadgudub ku samaynin soo celiyo sharaftii iyo karaamadii ay lahayd reer koonfur galbeed intaas kadib waad ogtihiin Soomaaliya maanta waxa ka socdo oo muddada dheer socday wax weligeed dhacay ma ahayn wax loo baahnaana ma ahayn haddii qofka bini'aadanka ah la doorto waxaana loo doortay baarlamaankii ka horreeyay uu ii doortay madaxweynihii koonfur galbeed waxaa la ii doortay 4 sano 4tii sano markay dhamaatay intayna dhamaanin maalintii la ii doortay bil kadib waxaa la iswaafajiyay dastuurkii koonfur galbeed oo ah xildhibaanada iyo xukuumadda inay isku waqti noqdaan 5 sano iyo saas ku noqotay 5tii sano markay dhamaatay waad la socotaan diyaar baan u ahayn inaan doorasho galno anaa codsaday mar ma aha laba ma aha saddex ma aha dawladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha aad buu u mahadsan yahay isku daygiisa wuxuu yiri waxaan mideynaynaa doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxaan ka shaqeynaynaa inaan qabanno doorasho qof iyo cod waxaan ka shaqeynaynaa si dimuqraadiyada in dalka loogu soo celiyo nidaam doorashooyin waxaan u aragnay wax fiican oo loo baahnaa oo muhiim ahaa in la qabtana ay ahayd qayb baan ka ahayn waana ka shaqeynay muddan ka soo shaqeynaynay qofba meel buu ku haraayay talooyin badan baan sameynay talooyinkii aan sameynaynay iyo wixii aragtidaanada ahaa iyo garbaduubkii waxay ku soo dhamaatay in dastuur dadka Soomaaliyeed oo dhan u qaylinayaan laga daba qaylinayo loo dhamayn xildhibaanadii eerboorada jiifaan kuwii kala maqan yihiin kuwa kale la qasbaayo in la yiraahdo waa la ansixiyay maalinkii la ansixiyayna la yiraahdo qof dambe oo wax la weydiinayo ma jiro amar la soo saaray la yiri kuwa maqan ma imaan karaan eerboorada laga xiro maanta kadib wax looga baahan yahay ma leh dantii laga lahaa waa laga gaaray waxa la suubiyayna wax Soomaali raali ka tahayna ma ahayn waxaan raali ka ahaynna ma ahayn waxaan ku heshiinayna ma ahayn wax la isqasbaayay oo bistoolad madax la isaga hayay one of the two ama waa ku dilayaa ama waa ila jiraysaa ama waa ku dilayaa ama waa ila jiraysaa ama waa ku ceyrinayaa ama waa ila jiraysaa aragtidayda waxba kama bedeli kartid waxba ma oginaysaa wax yeelnaa kan muxuu yahay aniga ku og aniga ku fikiraayo aniga ku haayo
adiga shahaado zuur baa ii noqonaysaa wixii aan sameeyo gacantaa taagaysaa muddaan ku soo jirnay waxyaalaha muddadaasaan ugu soo jirnay waxay ahayd soomaalinimo war soomaali amay ka naxdaan haddaad adinkana baxdaan soomaali amay dhibsataa soomaalinimada yaan la jeclo weyn ka lahayn waxaan islahayn miiska soomaalinimada adinka ku hara halinkaga kala tago awalba soomaali adinka isku hayseeni haddana isku haaya intii tagtay waa tageene balsey u soo noqdaan adinkana joogoo meesha ku hara intaasaan u joogno joogitaanka asaga ahaa anagoo joogno yaa haddana waxaana la yidhi markaan waa idiin dhammaatay joogitaan dambe lainkama rabo wax dambe loo baahan yahay ma lehe iska baxa dadka soomaaliyeed oo dhan waa ogyihiin dalka waxa ka socdo iyo daruufaha lagu jiro heer waxaa la gaaray ayadoo cibaado lagu maqan yahay bil ramalaan ay tahay dad muslina la yahay maxay ahaydee nin walbaba fasax ku jiro caruurtiisi jiro kacbada jiro la go'aamiyo la yidhaaho wax koonfur galbeed la yidhaaha ma jiraan waa baabi'inay mana aqbalayno laga bilaabo maanta afgooyo dowladda federaalka xukunto meesha la yidhaaho baraawo dowladda federaalka xukunto xudur dowladda federaalka xukunto koonfur galbeed oo dhan dowladda federaalka xukunto wax koonfur galbeed la yidhaahana ma jiraan heer la yidhaahaa la gaaray waa ogtihiin wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka warqad buu soo saaray oo uu ku magacaabayo degmooyin koonfur galbeed xaguu ka helay sharcigaas inaanan sharci la rabin oon dowladnimo la rabin haddii uu raganimadaas uu leeyahay oo uu degmooyin magacaabayo degmadii asaga uu ka soo jeeday shakhsiyan oo garow iyo u magacaabi lahaa oo deegaankiisa oon ognahay weliba inuusan tegi karin haddii uu nin raga yahay oo uu degmo magacaabi karo wuxuu magacaabi lahaa kismaayo wuxuu magacaabi lahaa afmadow muxuu u magacaabi waayey waxaa la yidhaahaa looyley intay kuu nugul yaa micno lahayn oo waxaan sheega qaadanaayo aniga yaa walaalkii dilaayo aniga annaga waxaan ku taagannahay dastuurka federaalka qodobkii 120aad oo qeexayo sheegayo wixii xuquuqdaanada ah dastuuriga ah ee doorasho ha noqoto maamulka annaga ha noqoto u madax banaynayo oo dhahayo waxay xaq u leeyihiin inay u isticmaalaan dastuurka stateka qodobkaas 120aad yaan ku dhaqmaynaa asaana ku shaqaynay aad iyo aad u mahadsantihiin waan kaga mahad celinaya laga bilaabo maanta koonfur galbeed madaxweynihii saddexaad oo loo doortay baan ahay mana aqbalayo adduunkana waa u sheegayaa faragelintan joogtada ah oo nagula wado weeraradan joogtada ah oo nagula wado ma aqbalayno laga bilaabo maanta amaraan soo saaraynaa tilaab baan qaadaynaa adduunyada iyo beesha caalamka na waxaan u sheegaynaa Soomaaliya oo 36 sano dawlad la'aan ahayd inaysan maanta aysan ku fiirsanin xasan sheekh oo go'aansaday inuu Soomaali si fiican u kala diray civil war ay bilaabatay nasiib wanaag madaxweynaha maanta wuxuu xukumaa xamar Soomaaliya ay go'deen intay la ekay waxa u soo haray waa annaga oo xoog nagu haysto uu leeyahay awalba waa la haysan jiray waadan haysanaya masiirkiina iyo damiirkiina kama wada hadli kartaan kama hadli kartaan annagu waa diidnay mana nala haysanayo horaan u sheegay intuu qof naga mida uu nool yahay dadka mabaadiidan aaminsan saasaan ku dhaqmaynaa mabaadiidan dadka aaminsan oo u dhimanayo weligeedba dad yar yaa halganka u dhiman jiray yaa dawladnimada u dhiman jiray yaa dhiigooda u shubi jiray dadkii yaraa oo soo haraan noqonaynaa waana difaacanaynaa dalkaanaga shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad dadka reer koonfur galbeed oo koonfur galbeed u dhashay meel kasta ay joogaan dal iyo dibad
علماء يعامو أقويهن يدلنيرة يهوين يسياسي انت بوحان وباقايا إني أطران مقعان سدح حرف أو كونفور قلبيده ولا وذليه أين إلى الشدان قف كستا أو ريب كونفور قلبيده أو طبشقبو عبشقبو وحلون إمي بين لوسو الشيقي ربو إلا قنعي ديار بان أبنهي واسود ويرينا جوجلنا بدأت بافتسن intay fidsan tahay ka soo qayb gala wixii aqabtaan noo sheega nagu qanciya talada koonfur galbeed baa iska leh xamar laga mala xamar dawladda federaalka degan dalka nidaam federaal u qaatay maamulkii waa la daadijiyay maamul kasta shaqadiisa doorashadiisa xukunkiisa magacaabistiisa asaaleh dastuurkiisa u qoraayo oo ogol dastuurka federaalka oo ogol xadgudubka iyo burburinta iyo dhaqan xumada iyo handadaada hanagala daayo waxaan mar labaad ku celinayaa dadka Soomaaliyeed oo micnaha leh oo Soomaalinimada aaminsan dadka madaxweyne Xasan Sheekh saaxiibada la ah dadka madaxweyne Xasan Sheekh qaraabada la ah dadka uu wax ka maqlo madaxweynuhu nin weyn baa tahay wixii aad soo sheegtay waa soo sheegtay 70 jir iyo tahay 70 jirna waxa u haray 70 kala ma aha aakhiraad leedahay lacagaan bixiyay dad Soomaaliyeed hawlayn lacagta Soomaalida ka mihiinsan lacagta baxday oo aad leedahay doorashadan kama samraay lacagaan ku bixiyay lacagta adimaadan lahayn markii lagu dooranayo hal shilin maadan wadan lacagta Soomaaliyeed ahayd isku day fiican baa sameysay waa dhameystiri weysay isku dayga asaga Soomaaliha ku kala qaybinin lacag darteedna hanoo dilin hadii lacag darteed aan loo dilayso lacagta intay ahayd noo sheeg Soomaali baa naga bixinaysay waa iska bixinaynaa hana dhameyn dalkan waa hal dal oo federaal waaye 10 sharci iyo 10 shaqo looma sameyn karo maadaama uu hal dal yahay hadii la yiraahdo saddex isteediyada qaarna waxay aadayaan doorashadii dadbanay isteediyada qaarna waxay aadayaan doorasho toos la yiraahdo ma laba dal noqonaynaa maxaa isugu iimaanaynaa aniga iyo Jubbaland laba isteed oo daris ahana oo isku dad ah oo isku deegaan ah oo isku dhex jiro oo la kala garaneyn labadaanadii state midna ma meel kale aadaya midna ma mabada kale qaadanaya soo hal dal manihin soo hal sharci malihin soo hal dal suur malihin marka waxa qofka bini aadanka loo sheegayo wax aqliga bini aadanka galay inuu noqdo la rabaa waligayna waa ka talinaynay oo waxaan lahayn madaxweynuhu noo miiri u tartiibi layli ma tihid nin weyn baa tahay awrta midna waa layli oo waa kan yarka oo buubo caruurta iyo alaabta muhiimka dhan lama saaro midna waa mid kaayinka oo weyn oo 12 jirka oo la raro wax walba la saaro oo gorodan cunuga la saaro waa yeelka la saaro tartiib geeyo madaxweynuhu nin weyn tahay Soomaali u tartiibi Soomaali u tur waxaad qixiso waxaad disho waxaad ceyriso waxaad handado waxaad xirto ha ka dhigin aad baan kugu mahad celinayaa mas'uuliyiinta sharafta leh inta fadhida iyo xildhibaanada sharafta leh intii idooratay iyo intaan idooraninba waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh